taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas Ibraahim Sheekh Muhiidiin Cadow ayaa maanta gaaray furmaha dagaalka ee gobolka Galgaduud. taliyaha ayaa ugu horeyntii gaaray deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. taliyuhu kormeerku uu ku tagay deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud waxa ku weelinayay saraakiil ka tirsan Mareykanka kuwaas oo halkaasi ka furtay xarun ciidan oo weyn oo ay ka hagi doonaan dagaalada ka dhanka al-shabaab. wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u bilowdo. dowladda Soomaaliya ayaana dhowr jeer ku celcelisay in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab kooxda looga saari doono deegaano iyo degmooyin dhaca maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laguna dhameystiri doono maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. dowladdu waxay sheegtay in wejigan labaad ay ka qayb geli doonaan ciidamo ka tirsan dowladaha safka hore si ay u xoojiyaan ciidamada dowladda. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa markii uu gaaray deegaanka Galcad waxa uu kaga sii gudbay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud isagoo halkaasi caawa ku hooyanaya. taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas Ibraahim Sheekh Muhiidiin Cadow ayaana halkaasi uga dhawaaqay in si rasmi ah wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab uu bilowday isla markaana kooxda looga saari doono deegaanadii iyo degmooyinkii ay ka joogaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug si loo soo gabagabeeyo wejigii koobaad intii ka harsanaa. taliyuhu waxa uu ciidamada halkaasi jooga kula dardaarmay in laga doonayo inay isku diyaariyaan isla markaana wixii hadda ka dambeeya si rasmi ah dagaal ku gudageli doonaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu xusayo 1 Luulyo oo ka dhacda Muqdisho Stadium waxa uu sheegay in al-shabaab ay gumeysi ku hayaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana wixii hadda ka dambeeyay la doonayo in shacabku ay u kacaan sidii al-shabaab inta dhiman ay kaga saari lahaayeen deegaanadii iyo degmooyinka ee gobolada dalka ka joogaan. waxa uu sheegay madaxweynuhu in al-shabaab aysan diin u dagaalamin balse ay doonayaan inay gumeystaan shacabka taasina aysan aqbali karin. tan iyo markii xilka taliyaha ciidanka xoogga dalka loo magacaabay sareeya gaas Ibraahim Sheekh Muhiidiin Cadow waa safarkii ugu horreeyay uu ku tago furmaha dagaalka isagoo halkaasi saraakiisha ciidamada xoogga dalka kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan sidii al-shabaab ay kaga saari lahaayeen deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada dalka. taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas Ibraahim Sheekh Muhiidiin Cadow ayaana laga sugayaa inuu sii laba jibaaro howlaha ciidamada oo wejigii koobaad ee dagaalka ka dhanka uu hogaaminayay sareeya gaas oo dhawaa Yuusuf Raage al-shabaab looga saaray deegaano iyo degmooyin ay muddaha ay maamulayeen al-shabaab kuwaas oo badankood lagu xusay toddobaadkii tagay iyo toddobaadkan bilowgiisaba dabaaldega toddobaadka xorriyadda ee 1 Luulyo iyo 26 Juun